أهلا وسهلا داوديال مeel kastaad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkii sport iyo halow maalin kastaad kala socotaan bartan kulleyna youtube-ka ee ciyaaraha lates tube iyo weliba muuqaal cusub halow maalin kasta idiin soo gudbinaa waa maalin jimcay taariikhdu ku beegantahay 2 October sanadka 2020 maanta guud ahaan waxaan ku eegaynaa ciyaaryahan Jadon Sancho la filayo inuu kusoo biro kooxda kubadda cagta United si rasmi ciyaaryahan Vladimir Kovac oo ku biray kooxda kubadda cagta West Ham United, Shaqiri oo laga yaabo inuu ka tago kooxda kubadda cagta Liverpool, Pereira oo si rasmi ugu biray kooxda kubadda cagta Lazio, ciyaaryahan Hussein Ar oo imika u jeestay kooxda kubadda cagta barnaamijka kala socon doonta soo kale ciyaaryahan Rudiger laga yaabo inuu ku biro kooxda kubadda cagta Spurs iyo waliba aan eegno rikoorada uu jibay ciyaaryahanka da'da kooxda kubadda cagta Barcelona Ansu Fati iyo waliba barnaamij kale iyo waliba qubanayaal kala socon doontaan bartan kuleenay YouTube-ka ciyaaraha lates tubes waliba ciyaarihi Calcio Carabao Cup-ka iyo waliba isku aadka wow ku caweynayaad moodaynaysa helaan fadlan dadka cusubta channelkeena baatay marka ugu horeysa soo booqatid subscribe nostar gambaleelkana helmaamin soo adhisho video kastaan soo dhigno barteenaan kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa in badan baadgobeyso ciyaaryahan Jadon Sancho oo dhashay dalka Ingiriiska oo ciyaara kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund. Ciyaaryahankan ayaa kooxdiisa ku qiimeysay ilaa 108 milyan, balse United ayaa kooxda kubadda cagta Dortmund mid ku saari doonto adduun dhan 90 milyan. ciyaaryahankan ayaa naf ahaantiisa jecel inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ka ciyaarta Old Trafford. waxaan mooday inuu diiday tababarka kooxda shalayto ilaa iyo maanta soo kale waxaa laga rabay kulanka Super Cup-ka kooxda kubadda cagta Bayern Munich kooxdiisa Solskjaer noqoto maalmaha soo socda ayaa la filayaa Sancho inuu ku soo biro Old Trafford. ciyaaryahan Vladimir Kovac ayaa si rasmi ugu biray kooxda kubadda cagta West Ham United waana difaac dhaca waxaana kooxda West Ham kala soo wareegtay kooxda kubadda cagta Slavia Prague adduun 5 milyan. ciyaaryahankan ayaa inta badan waxaana qalan kugu duway kooxda kubadda cagta West Ham ilaa iyo 3 sano intaasaad moodo inuu sanadka ku qadan doono 3.3 milyan waana ciyaaryahan u baahantay kooxda kubadda cagta West Ham United inkastoo nugnay in maalmahan kooxda kubadda cagta West Ham United difaacayiin ku aad u liitiya walba ay noqoto ciyaaryahankan ayaa la filayay kulamada soo socday kooxda kubadda cagta West Ham in uu u safto kooxda kubadda cagta West Ham soo maxsalamay taageerayaasha Slavia. ciyaaryahan Shaqiri ayaa la filayay inuu iskaga tago kooxda kubadda cagta Liverpool. tababaraha kooxdaasi ayaa sheegay in maalmaha soo socda la filayay Shaqiri inuu iskaga tago kooxda kubadda cagta Liverpool inkastoo inay ka dhiman yihiin suuqa kala iibsiga ciyaartooyda inuu xirmo ilaa iyo 2 maalin oo kaliya. walba ay noqoto ciyaaryahankan ayaa si rasmi ah loo sheegay halka uu socdo, balse tababaraha kooxda kubadda cagta Jurgen Klopp ayaa wargeyska The Bild ka soo baxay Jarmalka ayaa sheegay in kulanka Calcio Carabao oo ciyaaryahanka uu sheegay taas ahayd in la filayo inuu iskaga tago kooxda. laacibka kooxda kubadda cagta ee Manchester United kana soo baxay akademiyada kooxda ayaa si rasmi ugu biray kooxda kubadda cagta SS Lazio. ciyaaryahankan ku biritaankiisa kooxda kubadda cagta Lazio ayaa la sheegay in qarashka ay dhiibtay kooxda kubadda cagta SS Lazio si walba ay noqoto kulamada soo socda ee Serie A Talyaaniga ayaa la filayay ciyaaryahan Pereira in uu safto kooxda kubadda cagta ee Lazio ayaa in badan u baahan adeega ciyaaryahankan da'da dhashay dalka Brazil waana ciyaaryahan wax ku soo bartay akademiyada kooxda kubadda cagta United waana kuwa ugu wanaagsan oo ka soo baxo inta badan akademiyada kooxda kubadda cagta United. ciyaaryahan Hussein Ar ayaa mooda ku biritaankiisa kooxda kubadda cagta Arsenal inay noqotay mid ilaa imika la isku fahmin, balse ciyaaryahankan ayaa imika waxa soo jeestay kooxda kubadda cagta PSG oo baahan helaan adeega ciyaaryahankan u dhashay dalka France. kooxda kubadda cagta Lyon ayaa ku qiyaastay adduun dhan 40 milyan, balse Arsenal ayaa mooda inay dhibaan qarashaaskiisa iyo rabin ay ka dhigaan in ay saan kooxda kubadda cagta Lyon ciyaaryahan Gondizi iyo adduun dhan 20 milyan, balse Lyon ayaa u baahan lacag kaasha si u helaan ciyaaryahan kale. walba ay noqoto kooxda kubadda cagta PSV ayaa la filayay maalmaha soo socda. ciyaaryahankan Hussein Ar ayaa naf ahaantiisa jecel inuu ku biiro kooxda kubadda cagta Gunners, balse waxaan moodeen qorshaha Lyon iyo kan Arsenal ay noqdeen ko isfaham la. difaaca kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa la filayay inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur uu maamulo macallin Jose Mourinho, balse si walba ay noqoto kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa ciyaaryahankan ay doonayaan inay iskaga tago kooxda si oo taageerayaasha kooxda kubadda cagta Chelsea ala yaabay in ciyaaryahankan uu ku biiro kooxda kubadda cagta
Spurs taasi inay yihiin koox aan isku fiicnayn su'aalba noqotiyo waxaa la filayaa in maalmaha ugu dambeeya ciyaaryahankan iska tago kooxda kubadda cagta Chelsea haddii ay noqoto si ama in ay ku helaan kooxda kubadda cagta Blues lacag kaash ah balse Lampard ayaa naf ahaantiisa jecel in ciyaaryahankan uu ku diro si ama waa ciyaaryahan u dhashay dalka Jarmalka aan u baahantay kooxda kubadda cagta mustaqbalka sida uu sheegay macallin Lampard kol hore iminkaas waxaan eegaynaa ciyaaryahan Ansu Fati waa ciyaaryahan da'yar iminka u soo baxay kooxda kubadda cagta Barcelona waxaan moodaa in rikooryo badan uu yaalay ciyaaryahan Lionel Messi uu jibiyay aan eegno bal 4 rikoor uu jibiyay rikoorka u horeyso ciyaaryahankan uu jibiyay waxa ahayd in ciyaaryahankan oo xulkiisa qaranka u dhaliyay gool isagoo 17 jir ah halka soo kaleeto ciyaaryahan Messi u dhaliyay xulkiisa qaranka Argentina isagoo 18 jir ah midda labaad uu jibiyay waxa ciyaarta la yiraahdo pre-season ama ciyaarta la isku kooxaha isku diyaarinayn ayuu wuxuu ciyaaryahankan ka dhaliyay isagoo 17 jir gool soo kaleeto ciyaaryahan Messi ayaa gool ka dhaliyay kulamadaasi isagoo 18 jir ah kulan kale oo ciyaaryahankan oo rikoorka Messi uu jibiyay waxa in Champions League isagoo daadiisu ay tahay 16 sano jir uu ka dhaliyay gool kooxda kubadda cagta AC Milan sida ayuu sameeyay soo kaleeto ciyaaryahan Messi waagu yaraa uu jiray 18 sano rikoorkii afraad oo ciyaaryahankan uu sameeyay oo isagoo daayira waa rikoor uu ka dhaliyay La Liga Spanishka isagoo 17 jir ah gool halka soo kaleeto uu sameeyay ciyaaryahan Messi isagoo 18 jir ah uu ka dhaliyay La Liga Spanishka waxaan moodaa in inta badan uu ciyaaryahankani uu jibiyay rikooradii uu sameeyay ciyaaryahan Messi isagoo yar marka waa ciyaaryahan oo da'yar mustaqbal ku leh kubadda cagta dhan kale haddii aan eegno kulamada calayto la ciyaaray kan ugu weyn haddii aan eegno kulanka weyna ee derbiga dhexmaray kooxda kubadda cagta Liverpool iyo Arsenal inkastoo aan ognahay in daqiiqadihii loo talagalay caadiga ay kooxda isku mari waayeen balse kulkulaad ay ku badiyeen kooxda kubadda cagta Arsenal 5-4 ciyaaryahan Origi iyo Wilson ayaa ka beeldaray kooxda kubadda cagta Liverpool fursadooyin ay ku gudblayeen xagga quarter finalka waxa isku soo haray 8 kooxood oo kala yihiin Arsenal ayaa wajahi doonta kooxda kubadda cagta Manchester City Everton ayaa qaabili doonta kooxda kubadda cagta Man United halka kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur ay la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta Stoke Brentford ayaa soo kaleetay marti soo dhaweyn doonto kooxda kubadda cagta Newcastle United 8 kooxood ayaa isku soo hartay guud ahaan haddii aan kor maro waa Arsenal Man City Everton Man United Spurs Stoke Brentford iyo waliba Newcastle United waxaad moodaa in iminka koobkan Carabao Cup uu noqday mid xiiso leh inkasta oo la joogo quarter finalka ama 8 dhamaadka si walba ay noqoto kooxaha ayaa la filayaa inay isku soo haraan maalmaha soo socda barnaamijka sportiyaad kala socoteen ciyaaraha la teesto farsamadii Munir iyo codkii Bios waa naga intii